waxaanu nahay anagu laba shakhsi oo Soomaali u dhalatay oo dhulka Denmark ku nool muddo 56 sano ah hadda caruurtayada waxay barato jaamacadan ka saarnay dunida ku kala fariisan yihiin oo waa nool yihiin waa labad qabaan waxbarasho iyo dugsi sare oo dhilaala laga dhisan oo way baahna bal waxaanu sameynay 2011 foundation Sahra Maxamed Aadan iyo Ducaale oo la yiraaho Children of Somalia caruurta Soomaaliyeed waxaanu go'aansanay markaas haddii eebba nagu simo noona suurta geliyo 18 gobol oo ay Soomaaliya ka koobnayd inaan gobol walba hal iskuul hal dugsi oo sare aanu u dhisno haddii Ilaahay noo suurta geliyo maaliyadda aan ku dhisayna anagu ma lihin oo dad tujaaraho maalqabeena ma nihin laakiin saaxiibo tiro badan oo maalqabeenahan leena oo Danish oo nala diinahayn oo nala afahayn oo nala midab ahayn oo nala dalahayn laakiin saaxiibtinimo iyo isbarasho ay sukaay keentay iyaga ayaana mas'uul ka ah dhismaha ka garbahaarey iyo midkan ninka odaga saaxiibka uu sheegay oo 385 waa 387 in fact laptop hal nin baa noogu deeqoon siiyay nin Danish u dhashay oo Mareykan ah oo degan California oo ah ragga ku taajiray IT-da iyo kombiyuutarada oo hadeed Ilaahay un maal siiyay ayaanu maalin sheekaysanaa iyadoo iskuulkii uu qabyo naga yahay oo dhismihiisii socdo magaalada Copenhagen buu ugu soo booqday aniga iyo nimay saaxiib yihiin aniguna aan saaxiib nahay yaa sukaay keenay wuxuu yiri maxaad haysaa iskuulkii wuxuu uga shakiyo maxaa hadda u baahan miyaa jirta haaba iriyo niyo dhibaato ay haystaa iriyo iskuulkii waxaan jeclaan lahaa inaan u sameeyo hal class fasal kombiyuutar aan dhigo 12 hal ah oo ardada fasalba maalin ama saacado oo tago oo ku barto oo kombiyuutar u baahan tahay hey 387 laptop baan ku siinayaa inaan kursiga ka dhacaan ku sigtay marka waa mahadsantahay ma iri 387 laptop ayuu marka inta soo saaray wuxuu ii keenay Manchester UK oo yiri halkaasay kombiyuutarada yaalana oday ka qaado anigu Soomaaliya ku geyn maayo adigu geyso alxamdulillah waa ka faa'iideysanay hadda maantay iskuulkii aan dhisnay buu ahaa iskuulkii waxa weeye la yiraahdo magaciisa magac Carbeed baa loo bixiyay dagaal baan ku jiraa inaan ka bedelo laakiin niman wadaada ah hayo oo maaragtay ku dhigan al-Anwar bay u bixiyeen aniguna waxaan doonayaa in loo bixiyo magaca gabadhii sababta u ahay iskuulka inaan dhiso gabi ahaanba oo la yiraahdo Ifraax waxay ahayd gabar 12 jira iskuul ciriiri ayada oo dhigata ayaanu ku soo booqanay aniga iyo Sahra Maxamed Aadan markaas markii aan iskuul kaleeto oo magaalada ku yaal Garbahaare baan agab u geeyay yar markaas iskuulkoodina soo markaas waxaan meel ciriiri oo qorrax oo kulul ayuu ardayda farfadhida gabadh yar baa ileen gabay ii soo diyaarsatay macallinkii baa mudiirka iskuulka yiri kaala adeeron raac iskuulka nagana soo arag baahi baan qabnaa si aad noo caawinto hayehe baan noo niri raacno adiga markaan meesha aragnay oo maaragtay caaqib xumada ka muuqata iyo dhibaatada ardayda ku sugan tahay ayaan ka canon niri adinkana waan idin imaan doonaa gabadh yar baa istaagtay marka Ifraax xaashibay jeebka kala soo baxay ilaa gabadha akhbaartan oo dhan bay ogaatay gabay yar bay tix gabay ahayd ii diyaarsatay waxay tiri qurba joogta reer Sade ee qaaradaha ku kala nool salaan qiimo badan oo qalbigayga marataan idin soo qadimayaa bay tiri arday qiimo badan oo qol ciriiri badan iyo qorrax joogta aragto kaamara ku qabato qaado la dhooftay qalow miyaad ka tuurtaan bay tiri maxaad qoonsateenood qiimo noogu diideen maskaxdii baa qaraxday naxadin adiga gabay dheer baa halka ka tirisay waxay tustay in dad dibadda ka yimaada mar walba soo booqdaan masawir ka qaadaan gabadhna iska dhoofaan ayna dib wax uga maqal taasa horta sabab u ahayd iskuulkaas waa sidaas aniga iyo Sahra Maxamed Aadan waxaanu nahay oo la yiraahaa caruurta Soomaaliyeed hay'adna manihin NGO-na manihin ciidanana maal gashato dad aanu naqaano ayaa maaragtay tabarucaadna siiya waxa kamida dadkana tabaruca wax hay'ad u dhow ama hay'ada waxa kaga jira hay'adan la yiraaho DRC oo Danish ah
Danish Refugee Council markii aanu lacagta urursanno oo dadka iyo shirkadaha iyo aanu wax ka soo urursanno ayaanu niraahnaa warintaas aan haysanaa wax noogu dara